waa kulan si hersara loo soo agaasimay isla markaana looga hadlayay xaaladaha kala guurka iyo marxaladaha uu hadda dalka wajahayo maadaama lagu guda jiro xilli doorashooyin iyadoona markaasi ay kasoo qaybgaleen kumanaan shacab ah oo ka kala yimid 17 degmo ee gobolkani Banaadir waxa sidoo kale halkaasi ku sugnaa dhammaan mudanayaasha musharaxiinta madaxweynaha sanadka 2021 waxaana halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka qaarkood oo sheegay in dalka hadda marxaladda uu ku jiro ay tahay marxalad dadku ay ka wada baqayaan taas oo ay sheegeen in ay u dhowdahay in loo laabto 30 sano ee Soomaaliya burbursaneed baaqay u direen dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dalka oo ku aadaneed in dalkan uu ka shaqeeyo sidii doorasho nabada ay ugu dhici lahayd dadkuna ay ku wada qanacsan yihiin oday Soomaaliyeed oo jecel nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda ha ilaawin sidii lagu doorto waxaan cod dheer ku sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee hadda kursiga ku fadhiya wadanka inuu ka qabto doorasho xalaal ah waqtiga yara loo dhiman 40 cisho ama waxa ka yara inaan gaarsiino wadankan marxaladda kala guurka qaar ka mid ah dhalinyaradii halkaas ku sugnaa iyo abwaanada ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ay dalkan rajo wanaagsan ka leeyihiin baaqa madaxweynaha hadda wali wadaaye haddaad isleedahay intaad xaaraan samaysaad xaaraan maalinba kusii joogaysaa hay-ahaad wallaahi ma dhacayso gidigiin isbiirsada xilbow gogol dhigaynaaye xilku galabta weynoo martiyo guurtii soor mudaane markii la gudagalay khudbadaha musharaxiinta waxaa ugu horreyn hadlay Mustaf Dhuxul oo ah musharax madaxweyne sanadka 2021 waxaana uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya oo majraha u hayo madaxweynaha dalka xaaladda hadda la gelinayo ay tahay mid dadka aysan ku wada qanacsaneen Fahad Yaasiin taliyaha nabad sugidda iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka go'an dadka Soomaaliyeed inay god ku ridaan waxaa la idinka rabaa inaad ka fikirtid mustaqbalkiina dhankiisa waxaa hadlay Shariif Sakiin oo ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed haddana ah musharax madaxweyne sanadka 2021 oo dhankiisa halkaas ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay madaxweynaha waxyaalo u soo tatabay oo waxaa jira dadka Soomaaliyeed ay furuntii nabadda ka aadeen tada dhibsana laakiin waa sheega maamul lagu tartamay doorashadiisa ma jirto Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah musharax madaxweyne ayaa isna waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dalkan qalalaasihiisa aan laga shaqeynin madaxweynaha wuxuuna leeyahay horta waxa ogaatiin madaxweyne Farmaajo soo u yimid dadkii ugu badnaa magaalada ka dhintay 1,000 qofooda isku maalin meel ku dhimatay maalin kalena 200 isku meel ku dhimatay Cabdiqaadir Cusable oo dhankiisa ah musharax madaxweyne ayaa isna goobta ka hadlay annaga waxaan rabnaa doorasho xalaal inay dhacdo dagaal sokeeye in loo noqdo diyaar uma nihin Daahir Maxamuud Geelle musharax madaxweyne sanadka 2021 waxa uu sheegay in loo baahan yahay waqti xaadirkan in loo wada istaago sidii dalka iyo dadkaba loo samata bixin lahaa dowladda hadda jirta wixii la isku ogaabay ka baxaysa Soomaaliyeed isla safnaataan loo baahan yahay midda kale marar badan waxaad baqli doontaan meelaha inta joogtaan dagaal la sameeynaa kana la yeelaa oo 19 loo noqonaa horta 19 loo noqonaa 19 ku faa'iiday oo u noqonaa Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya haddana ah musharax madaxweyne sanadka 2021 ayaa waxa uu sheegay in dalkan uu soo maray marxalado kala duwan haddii la qabto doorasho aan wadan ogol ku dhicin waxaa ka dhalan doonta dalka dawlad aan la isla ogolayn dawlad aan la isla ogolayna waxay dhalisaa siyaasad khalkhal dhalisa siyaasad khalkhal dhalisana waxay dumisaa dal ee dal ma dhisto madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna dhankiisa hadlay ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in la caburiyo dadka isla markaana waxa uu xusay in dhawaan Muqdisho lagu qaban doono banaanbax nabadeed oo ay markaasi murashaxiinta horjoogyaal u yihiin banaanbaxa lagu baaqay waa soo socoyaa loo diyaar garoobo waa mid nabadeed oo aan ka midnahay sida loo sheegay horena aan u sheegay haddana aan ku celinayno maalintaasi waa soo socotaa ha noqonin tooreydii biri maxkamadda la geeyay waatana muxuu ahay waa kuwana wariya adag yaa idin magacaabay maxaa u sameyseen maxkamadda horteeda iyadoo telefishinada caalamkuna saa idin biriha sabab ha u noqonina qaanuunka u hoggaansama dastuurkii ninkii odaga ahay abwaanka ahay timajirc Muhammad Sabislo ahay bisle ee halkan xigmadda weyn ku jiray dastuurka waa xarigii ninka ceelka ku dhacay uu sheegay waa ku kalsoonaada aamina
dadkiina hore ugu soo heshiiyey mushkiladan ayadoo aanay jirin dastuurka la sameeyey si waxa imaan doono suurtagalka ay xal ugu noqdo oo horta ha suuranin ceelka waa laga soo saaraa laakiin adoo meydayaan laga soo saarin aad iyo aad aan markaan ugu mahad celinaa waxaan leenahay dad badan oo Soomaaliyeed oo annagu aan ka mid nahay walwal badan aan qabnaa waxaan walwalka ka qabnaa dadka Soomaaliyeed inay xun yihiin ama qaab daran yihiin ama colaad u taagan yihiin ma aha waxaan walwalka ka qabnaa waxa ay madaxda maanta joogto sida u dhaqmayso oo qaanuunku ugu dhaqmayso oo dawladnimada ugu dhaqmayso waay madaxweynaha hadda ka horna waa u sheegay waa fariinta haddana mar kalena waa u farayaay bila Soomaaliya haddii laga soo baxo nolol qurux badanaa jirto nolol qurux badan oo sharaf badan oo dadkaagu ay ixtiraam ku hayaan oo maxaan ku iraahdaa adigu aad ku noolaa karto oo taariikh fiican leh yaa jirta markaa si fiican uga soo baxdo haddii laga soo qoor qabto laakiin ma lihid intaas fursadaa kuu furan dadkan dad hadda muxuu ahay sida aad ku haminaysaan iyo adiga iyo wiilashaada aad ku fikiraysaan ama aha dad fiican waaye dambiga iyo qaabdarrada laga gelayana ha ka gelina kuwa gada la geeya ha la soo celiyo dadka gada jooga ha la heshiiso dadka gada jooga aniga madaxweynaha markaan ahay diyaarada inta qaataan u tegey waa tegey garbahareyda maanta laysku dhex fadhiyaan soo dhex istaagay dadkan soo dhageystay maxaa dhib oo qabtiin weliba waqti ay duruufo adag ay ku jiraan oo abaaro ay jir colaad ma jirin isma dileen qoryo isuma haysanin duruufo gaara iyo waxaa abaaraa jiray sidii intay la eg tahay iyo xadigooda inaan aniga dad inay ii sheegaan ma aanan aqbalin diyaarada inta qaataan ka degay aan soo dhageystay kadibna wixii loo qaban karay oo awooddu isaamixiisaan qabanay dadka gado degan ee sharafta badan inay inta kala qaybsamaan qaar cararaan xuduudda ka gudbaan qaar kale ay magaalooyinkooda inta ka cararaan duurka aadaan kuwa reer gada aan ahayn la qaado ee meesha loo geeyo ee ayaguna ay meesha muxuu ahay dhibaato dadna u geystaan ayaguna ay dhibaato ku dhacdo kuwii reer gada ah in badan oo ka mid a inta lasoo qaado in xamar la keeno la yidhaha adeerkiina daaficaysiin waxaasi xigmad waa dhaqan nin xikmadi ka dhammaatay dhaqankiisa waa madaxweynaha xikmaddaa ka dhammaatay madaxweyne walaalaha aan nahay annagaa xikmad kuu leh aan gacanqabadkaadaan leenahay joog waddada aad ku socotaa meel fiican kuma dhammaato hortaaha ay dad badani fataq u yeedaysay ugu sii hadaafayeen ayagoo u arkaa laaca aragtaya laagga moogtahay joogtaa laaca ha fiirino quruxda badan ee 20 sano 30 sano dalka inaad ka talisa ah xagga kaaga muuqdo kaaga muuna qarar badanaa ka sokeeyo oo laga dhacayo ha ka dhicin keligaa haddaad ka dhacaysid barbadiyow joog ma diidaa orod ka dhacan ba ku dhehina laakiin annaga dhammaan nala dhici rabtaa ee na dhig dowladnimo iyo dimuqraadiyada dadka Soomaalidu dhaqan ahaanay u leedahay dimuqraadiyada taariikhda laga hadlay inaan muxuu ahay dal dimuqraadiya dad dimuqraadiya dhaqankeena iyo spiritka nolosheena ay ka mid tahay dimuqraadiyada dad qable oo inay isduleystaan iyo in la duleystay intaba aan ogolayn waa ayagoon dowladda inaa dowladda inta kusoo duulaanay maageen say rabaan inay ka yeelaan laga yaabo sida ay rabeen qaarkeed si u fiican dalkan iyo dadkan xataa inay ahayd laakiin lama talagelin tala laguma siin war waxaanaan fiican say idin tahay waa ma idin la fulinaa lama dhihine ayadoo la duulaayo oo maxaan ku idhahdaa taangiyo iyo diyaarado iyo adduunyo la wataa lasoo kordhagay war maxay ahaan waxaan intay noogu yimaad waa wixii ogaantaa ka dhacay muxuu ahaay beledkan iyo dalkan dadka marar badan waxay isweydiiyaan war adduunyadii faraha badneedee weyneed ee 36 dowlo lahayd ee dalal kaloo daris oo waaweyn lahayd yaa dadkan yacsigeeda wiilashan yaryarka ee shabaabka maxay yacsiga dhihi waayeen xaqiiqada waxay u baahan tahay in dhabta la fiiriyo ma ogtahay maymuun biyoy islaantii la dhihi jiray ee shabeellada dhexe ku nooleedee abwaanada ahayd xikmadeedii waaye masaari geed ma goysee geed kalaa ku gooyo gaal hadduu islaam wadana ma soo galeynay dhahday waagii talyaaniga uu dalka soo degaayo waay shabaab qaarkeennaa ku daaban ma ogiye saasna ma yeeli karaan laakiin
waa masaartii daabkii geedka qaarkiis annaga aan ku daabnayn waaye dhibkana haysto kaas waaye ayadana indhaha hadda noo soo furmo waaye daabka waa ka siibanaynaa masaar dhiliq hadday wax dumi karto kabacdi la arkaa ayadana aad iyo aadaa u mahadsantihiin waxaan mar kale u mahad celinaa dadkan muxuu ahay caawa waktigooda qaaliga ah meesha soo bixiyay dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaanna waxaan leeyahay cabsi ma jirto dhib ma jiro dal dumaya ma jiro ninkii qalloocan asaa qalloocan na dhaafaa la dhaha wuuna na dhaafaa ninkii qalloocan madaxweynaha fursadu haystaa wadadaas uga leexo karo wadada uu ku socdaa wadadii fiicneed oo barbar socoto tartiib waa ku leexo karaa wadada fiican waa u sahlanta waa u dhowdahay inuu ku leexdo midda fiican oo dadkan oo dhanna ay shalay u sacbinayeen war heer dhahaya ilaahay amarkiisa madaxweynaha shalay markii la doortay ee magaaladan isla gugucaysay ee xabadaha la ridayay ee meel walba laga dabaaldegayay reer hebel ma ahayn maanta waa khaldantaa mugga la yidhaha muxuu reer hebel u noqonayaa caqligana looga cayaaraya sow maaha war shalay markuu prime ministerka ahaa ee iyadoo la qaylinayo jidadka loo taagan yahay oo baxayay reer hebel ma ahayn nin soomaaliya oo hogaamiye soomaaliyeed oo ahay maalintii la dooranayay ee annagu aan raalli ka soo noqonay usoo hambalyeynay ee beledkaanina uu isla gugacay oo meel la kala istaaga la waayey oo shabaabku xataa dadka ay cabsi geli waayeen ay celi waayeen ee jidka usoo baxeen marxabada iyo kelmadihii waaweynaayo oga ay dhacayeen reer hebel ma ahayn hadiyey soomaaliyeed oo ahay maanta hadduu qaldamay waa qaldan tahay la yidhi miyaa muxuu ahay reer hebel kuwa saas dhahaya miyaa ku hayb ahay madaxweynaha reerkiisa may ahay jufadiisa may ahayn dadkan inta fadhiyay iyo inta lamidka ah magaaladan degan soo ma ahayn maanta hadday banaanka usoo baxeen xabad ma afka inta laga geliyaa laleeyahay waryaa reer hebelaad iyo reer hebelnimaad wadiin miyaa la leeyahay war waxaasi xigmad ma aha caqli ma aha meel ay daruuro ku leedahay oo ay ku hagaagsan tahay ma laha walaalkeen maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaan leenahay raalli ahaaw caqliga ha kuu soo noqdo sakradda xukun jaceylka ay ha kaa degto dadkaaga u soo noqo fursadaad weli haysataa inaad mar kale lagu doorto madaxweynihii taariikhda ugu horreeyo 2 jeer la doorto inaad noqdo fursaddaa haysataa laakiin marna ma dhacayso waddada aad ku raadiyo haysta inay dhacdo maba dhacaysaba anaa kuu sheegaayo waa ka baryo waayo ma dhacayso ma jirta dhinacaasi dhinaca kale bidix u jeeso inta tiraahda dhinaca kale aad dadka soomaaliyeed mar kale waa idiin mahad celinaa walaalaheen meel kastoo dadka soomaaliya joogaana na dhegaysayna na maqlayana waxaan leenahay dhibaato ma jirto waxaan isku haysana waa dimuqraadiyad waa dowlad wanaag waa nabad waa muxuu ku rahaa dal dhismay cadowgiisa keliya oon qabno aan hor istaagnay oo 4 sano lasoo dhaafay aan waxba laga qabanin iska bulaalay cashuurta qaadanaya sida hadda loo sheegayay dalkii meel walba haysto waa ka xumahay madaxweynuhuna maalin kasta wuxuu ku faanaa ciidamaan dhisna karaan dhisna ciidamada dhisna mitirka lagu cabirayo waa maxay inay uniformka qurxoon qabaan qoryo waaweyn sitaan miya mase dalka inay cadowga ka dhiciyeen ay ka xoreeyeen waay tuulada la xoreeyey 4 sano lasoo dhaafay hala sheego waa challenge garaynaa madaxweynaha waxaan leeyahay noo sheeg tuulo hebela maalin hebel shabaabka laga bixiya yidhaahdo kuwa oo xor ah ay qabsadeen aan sheegi karnaa tirinayna cawadan halkan waa laga sheegay marka ciidamadeenu waa qurxoon yihiin waa dhisan yihiin caalamkii lagu kaalmeeyey waa mahadsan yahay kuwii nagu taageero waa mahadsan yihiin dadkii ka soo shaqeeyey waa ku mahadsan yihiin laakiin midi af leh oo fiican oo laga soo shaqeeyey waayo sidii saxdeed looma isticmaalo waayo walax qaladaa lagu isticmaalo waayo neef inay gowracdo mididu ay xalaalayso waa sax waayo nin muslina oo aliika leeyahay in halowda laga gilo lagu dileen waa isla mididii waayo neefkii loogu talo noogu gowraco shabaab nooga xoray ciidamada halowda naga gelin aan leenahay madaxweynaha banaanbaxa lagu baaqay waa soo socoyaa ha loo diyaar garoobo waa mid nabadeed oo aan ka mid nahay sida loo sheegay horena aan u sheegay haddana aan ku celinayno maalintaasi waa soo socotaa ay dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan ha u diyaar garoobaano waa mid nabadeed waa mid maxaan tusaaleyn waa mid dimuqraadiyadda iyo xukun wanaagga iyo wadajirka soomaaliya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin waxaan u malaynaa waktiguna waa dheeraaday dadka hadlayana waa bateen odayaal kalena waa dhiman yihiin marka dadka inaan la dheereyna ku fiican taha u malaynaa saaxiibkii cabdiraxmaan cabdishakuur iyo daahiriya markay hadleen iyo mustafana waxaa ma isdhaa wax dhiman male wixii la dhihi lahaa ayagaa dheheen
marka waxaa maalmahan dadka aada ii weydiiyaan oo mar walba is-su-aalaan war niman yahow idinku musharaxiintiinaan isku tegay maalin walba bayaan lee soo saaro haysiin maalin walba waxbaa soo bixiyo haysiin soo saaraysiin ninkaa odagaa madaxweynahan shaqadiisoo iska wataa hawshiisoo wataa waa ogtiin hadda markaan meeshaan soo gelayna waxaana la tusinayay warqad ay soo saareen wiilashii guddigaah oo laysku haystay dhallinyaradii laysku haystay war ay soo saareen oo ay leeyihin waxaan rabnaa in la qabto doorashadii aqalkii sare marka idinkama waxaa ku jiraysiin wax soo saaro le bayaan le maa ku jiraysiin markaan soo gelaynana bayaan kale aan uga jawaabnay taas nafteeda waa idiin sheega waxaa laga yaaba inaad weli helida warnimayo annaga waxa aan na haysto oo aan dareensannahay waxaan u malaya inaad fahmi kartaan annaga walwalaa nagu jiro khatar adagaa u jeednaa oo aada u badan oo soomaali haysato oo dhaqaaliya haysato oo dadka haysato oo waddanka haysato markii aan hadalnana waxaabana lakugu jawaabo hayaa waddanka 91 ma awoodin waxaan rabaa inaan idiin sheego madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo aniga waxaan iskula jiri jirnay midowda musharaxiinta oo isbedel doonka ah waxaan u maleynayaa janaayo maanta haddii la taga arkiifyaha maaragtay baarlamaanka waxaa la helaa warqad uu soo saaray midowda musharaxiinta isbedel doonka ah oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku tirsan yahay dadka saxiixay waxaa nagula jiray walaalkeena cabdiraxmaan cabshakuur aa nagula jiray waxaan kasoo wada horjeednay oon haysanay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan lahayn madaxweynew doorashada cadaalad ha u ekaato doorashada dhexda soo dhig doorasho loo sameeya ha noqoto warqadii aan saxiixinay oo baarlamaanka taallo inkastoo aniga aana saxiixin aan sidaa hadda xasuusanahay waxaa ku qorneed ma aaminayno in iskool buluusiya lagu qabto doorashada waxaan rabnaa hangarka in la geeyo waxaana saxiixay maxamed cabdullaahi farmaajo isagaa hormood ka ahay madaxweynaha maalinkaas mana la dhehaynin waddanka 91 u celiyo haysiin maxaa dhacay maxaa u dhaaranaysiin haddaan hadalna waxaaba leeyahay maxaa u dhaaranaysiin war annagu mana dhaaranayno sidoo walaalkay baa sheegay wasiir daahir annaga waxaan rabnaa doorasho xalaala inay dhacdo dagaal sokeeye in loo noqdo diyaar uma nihin dhammaanteen waxaan soo joognay oo qaarkeed soo saameeyey dagaalka sokeeye dhibki soo dhacay soomaaliya ka dhacay waxaa laga yaabaa qof walboo naga mid ah ama waalidkiisaa kusoo dhintay ama adeeraa kusoo dhintay ama qof uu jecel yahay oo hortiisa lagu soo duugay anigaa idinla hadlaayo waktigii dagaalka sokeeye ah walaalka iga weynaa ku dhintay waalidkeenaa ku dhaawacmay caruuraa ku dhimatay marnaba qorshe nooguma jiro talana nooguma jirto waddankan inuu colaadii dagaal aado waxaan rabnaa oo maalin walba u hadlaynaa oon meel u soo istaagaynaa shacabka soomaaliyeed oo idinkugu horeysaan inay fahmaan qof walbana ay fahamto qofka waddankan dagaalka u wado oo in laysku baaba-a rabo oo dhibka ka shaqaynaayo inuu yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadda waxay joogtaa ciidamada in laysku adeegsado sidaa la socotaan in militariga ciidanka militariga ah oo intaasoo sana shabaab iyo wax walba la dirinaaye saraakiishiisa ciidamo boolisa loo diro ama ciidamadii la yidhahdo kuwaana waa gorgor kuwaana waa haramcad kuwaana waa militarigi ayaga laysku laya joogtaa waxaan rabnaa ciidamada qalabka sida meel walbay joogaan ciidamada booliiska ah kuwa haramcad kuwa gorgor nabad sugidda dhammaantood inay ogaadaan waxay u shaqeeyaan waa qaranka soomaalida calanka eh uma shaqeeyaan qof maanta fadhiyo meesha oo madaxweyne ka ah ninkii berri yimaadana way la shaqaynayaan ee qof uma shaqaynayaan haddii ilaah yaraa waxaan rabaa inaan la ysku dirin inaan dadka la daldalaayo sida walaalkeen uu sheego shabaabkii la kormarsiinayo oo maanta doolow iyo maaragtay bulaxa loogu qeybinayay aakayaal cusub oo ay keento maaragtay
dowladaha dariskaa laga soo qaado lagu qeybinayo inaan dadka soomaaliya laysku layn inaa la rabaa. waxaas oo dhanna waxay u dhacayaan 4 sanaan joogay aan sii joogo bas waa la soo waayey kursiga. haddii qofkii walba uu iska joogaayo rag badanaa iska fadhi lahay oo xoog aan uga kicin iyo dagaal. marka waxaan rabnaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa laga codsanayo wax dhib badan ma aha, waxa la weydiinayo wax culeysa ma ahan. waxa ay yihiin madaxweynuhu doorasho cadaalad ah oo dadku ay u siman yihiin oo dadku ay wada ogol yihiin aan qabsanno. ama halgu intii maanta hadashay ama dhalinyaro ha noqdaan ama haween hadlaan intaasaa laga hadlayay, laakiin waxaa muuqato inuu diidan yahay. marka hadduu diidan yahay maxaan suubinaynaa? waa inaan si nabad ah oo silmi ah ku diidnaa waxa uu wadoo dhan. sida walaalkeen maxamed cabdiraxmaan uu yidhi waa inaan diyaar u noqonnaa mudaaharaadyo silmi ah inaan suubinno. dastuurkaa noo kafaalo qaadayo, sharcigaa noo ogolaanayo, waa inaan suubinnaa oon dhahnaa ma yeeli karno. umana noqonayno dagaal sokeeye, boob iyo dictatornimo iyo keligiistanimona ma yeelayno qarnigii 21aad. qof aan ka aqbalayn haba yaraatee ma jirto. waxaan rabaa marka shacabka inaan taas kula dardaarmo, ciidamada inaan la dardaarmaan rabaa, khaasatan ciidamada la leeyahay gorgor waaye iyo haram cad waaye. war ciidamada qarankaa tihiin, hantida qarankaa waxaan idinku soo baray, yaanan leediin adeegsanin shacabka soomaaliyeed, yaanan leediin adeegsanin dad xorriyaddooda doonaayo, xuquuqdooda raadinaayo, yaan leedin horgeynin, yaan leedinku dirin ciidamada qalabka sida, yaan leedinku dirin oo guryahooda habeenkii leedin maaragtay inaa u dhacdiin leedin dirin. madaxweynaha haddii uu sharci rabo, maxkamadaa jiro, qaab dad loo xiraa jiro, qaab dad loola xisaabtamaa jiro. madaxweynaha waddada ha soo raaco. waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo ciidamada nabad sugidda. waxaad ogtihiin maalmadhood mudaaharaadaa dhacay. mudaaharaadkii waxaa yimid niman dhalinyaro ah oo nabad sugid waa la leeyahay oo qaarkood bistoolooyinkooda ay wataan dadka mudaaharaada ee dhexdooda soo galay. waxaan rabaa dhalinyarta nabad sugiddan inaan idhaahdo war waxaa leediin diray waa shabaab iyo qofkii amniga wax u dhimaayo. leediinma dirin dadka xuquuqdooda raadsanayo oo si nabadla ku bannaan baxaayo oo waxay uu dastuurka u baneeyey ku socdo ma leediin dirin. waxay imaanayaan marka dambe in shabaab leediin maleeyo oo dadka dhexdooda leedinku dilo. ka feejignaada, ha yeelina in mudaaharaado inta leediin soo diro leedin dhaho idinkoo bistooluhutiin dhexgalee dadka dabakacay hadhowta soo xira. dhowr qof oo la xiro waxaan aqaanaa niman bistoolad leeya ay meesha ka raaceen ay soo maaragtay ay dheen kaale waa idin xiraynaa. arrintaas ka digtoonaadaanu. nabadgelyo darro ma rabno, dagaal sokeeye ma rabno, dhib lagama shaqaynaayo. inaad fiirsateenaan u maleynaa mudaaharaadka dhowaad raggii hadlaaya waxay dadku u sheegeen baabuurta inaan la jajabinin, jidadka yaan la xirin. dadka hadaladoodana si gaar ay taabanayeen. mubaaragaa rabaa inuu i dhammaystireen. waxaa jira gumac galaabta ninkii ridee maxaa ku xigay ya waxaan rabaa dowladnimada soomaaliya iyo soomaaliya wax yar inaan ka idhaha dadka hadalka kuma dheereeya mar idinku dheereynayo. 1960 markaan gobonimada qaadanay soomaaliya waxbaan kaga gedisnay, adduunka qaaradda afrika waxbaan kaga gedisnay. 2 gobol oo isdoontay oo dowladnimada iyagu ku heshiiyey baan ahayn ugu horeeya. abaalkeeda waa la lahaa laakiin waqooyiga ku badnaa amba somaliland baa ku badnay. waxaan kaloo ahayn dowladdii afrikaanka ahayd ee ugu horeysay ee doorashooyin xur xalaal ah madaxweyne xilka haya looga adkaada ee aqbalo baan ahayn. harta markii la isugu yimid waxaan ahayn dad soomaaliyeed ama qaaradan dadkii ugu horreeyey ee dagaal sokeeye ku kala adkaan waayey ee heshiiyey ee doorashooyin inay qabsadaan oo isdoontaan ay heshiiyaan meel marya baan ahayn. annagu qaaradatan dadka ugu badanna ma nihin, xoolo badan ma dhuurfino, laakiin xukun degan ayaan lahayn. waxaan xasuustaa 17 markii doorashooyinka ay dhaceen dunida carabta hadalka ugu haynta badan ee xagga xukunka waxay ahayd xaaladda soomaaliya ka dhacday oo garbaha ay isayseen 3 madaxweyne oo xilka u kala dambeysay oo midkii ugu dambeeyey bilaya. warbaahintu halhalay usoo qaatay arrinkaas ay kaga hadasho.
waxaa la rabaa marka halkii shay aan adduunyada uga gedisnayn ee aan ku wada joognayn isku maslaxanayn haddii meesha laga bixiyo dhibaato badan baa soo socota suuragal hortaa meesha in laga bixiyo haddii arrinkaas sidaa lagu wado dowladda anigu wasiir baan ka ahaa waayeel siyaasadeed baan ahay diblomaasiyad baan ka soo shaqeeyey doorasho ixtimaal leh dowladda hadda jirta maalinna kuma fikirin ixtimaalka waxaan ka wadaa in doorasho inta dhacdo sanduuqa la tiriyo sanduuqa xaqiiqadiisa aan la ogeyn markii lasoo tiriyo kusoo rogaa tiriska markii la bilaaba madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo kuma talagelin doorasho marka hore la yaqaano hadda murashaxiinta hadda maanta waxaa laga hadlaa dadkii oo guddiyadii yaa laga hadlaa waxaan ogahay murashaxiinta dadka ay rabaan in laga qaado interview laga qaado su-aalaha xataa waa laga wadaagi karaa dadka la weydiiyo si looga rusoomo taasi maxay noo horseedi kartaa isla socodkeena iyo isla jirkeena inuu meesha ka baxo mara badan waxaan maqlaa marka la sheega war khayr ka taliya war fiicnaada war halaysu habeeyo war saan ma ahan inaad sabartiin baa la rabaa sabarka markii lays amrayo waxaa rabaa ka hor cadliga in lays amro halagu boobay walaalow nabad ka shaqeey waxaa ka sahlan walaalow adiga hadda waxa boobin lama boobi jirin ee adigu ha boobin in la yidhaahdo maalin dhawood waxaan dhageysay dad culamadiina kamid aan ahay waxay yidhaahdeen haddii wax la sameeyo waxaa la rabaa inaad sabartaan aayaadka sabarka aayaadka cadligaa dhinac socdo dulmanaha dulmigu adkaysa lama yidhaahdeen dulmi wadaha jooji la yidhaahdaa marka culimmada waxaa laga rabaa iyo dadka soomaalida waxaa laga rabaa cidda qabashada leh wixii la isku ogaa cidda ka baxaysa waa dowladda hadda jirta wixii la isku ogaa bay ka baxaysaa soomaali inay isla sabraataan loo baahanya midda kale mara badan waxaad maqli doontaan meelaha intaad joogtaan dagaalaa la sameynaa kanaa la yeelaa oo 1990 loo noqonaa horta 1990 loo noqonaa 1990 yaa ku faa'iiday oo u noqonaa 1990 maxaa keenay doorashada xul xalaala maa keentay bas xukun habeen madow qor inta lagu qaatay la isku dilay ee la isku dacdareeyay dalku isbedeli waayey ee bangiyadiisi dhex kaceen oo dadkiisi baaba'een oo bulshadiisi magaaladii xaydaabkeeda ciidamada isku laynayaan maa keenay lama rabo in taariikhda la marin habaabiyo taariikhda in la marin habaabiyo lama rabo markaan isdooranno isma dilno markaan isdooro diidno isdafirno oon isdhacno ayaan isdilnaa isdil ma rabno soomaali ha loo gudbiyo waxaan rabnaa in la isdoorto laakiin doorashada haddii macnaha mudmuunka laga bixiyo waa doorasho la yidhaaha midowga soobiyeti waa la iska dooran jiray bogsantiin jarmalka barina waa la iska dooran jiray kan galbeedkana waa la iska dooran jiray darbigu laakiin dhanka midka galbeedka u dhaca markii dambe laakiin kala doorasho kama jirin annagana sidayna xataa waa isdooran jiray waqtiga gacanka waa la isdooran jiray laakiin waa la isdooran jiray ma aaminsanin in idinka hadda aragtaan laana doorasho xor xalaal ah oo natiijadeeda aan la garanayn ma aanay ahayn sanaadiiq midna xiraya midna furayaa la dhigi jiray waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka soomaalida meel kasii joogaan dagaal sokeeye loo noqon maa dictaatoriyadna la aqbali maa doorashooyin kuma baarnaa waa marka hore si weyn ugu mahadcelinayaa taageerayaasha midowda musharaxiinta ee maanta halkaan isugu soo baxay ayaan u mahadcelinayaa midka koowaad marka labaad odayaashii dhallinyaradii aqoon-yahankii waxgaradkii goobtan ka hadlay ee wacyigooda siyaasiga ah uu sidaa u sarreeyey waxaan rajaynayaa inuu madaxweynaha fariimahaas dhagaysto ayagana u mahadcelinayaa intii meeshaan ka hadashay intaba walaalayaal waxaad la socotiin in dadkii soomaaliyeed ay hadleen oo odayaashii ay hadleen oo ay shir qabteen oo dhallinyaradii ay hadleen oo haweenkii ay hadleen oo culimmadii ay hadleen oo musharaxiintii ay hadleen oo dowlad goboleedyadii ay hadleen oo beeshii caalamka oo isla jirta ay hadashay oo urur goboleedka igadaa ugu dambeeyey oo hadlay dhammaan waxay isku raacsanaayeen doorashada dhexda ha la dhigo maamulkeedana ha laga heshiiyo hal ninaa diidan ninka diidan waa maxamed cabdullaahi farmaajo soomaali waxay tiraa waaxid
iyo wadar yaa waalan ayadoo og tihiin baaqii laga soo saaray igad ayadoo og tihiin beesha caalamka 15 December warmurteedka soo saartay ayadoo og tihiin inuu cawada aan hadlayno madaxweynihii Puntland oo kaalkacyo u yimid inuu la shiro madaxweynaha Galmudug ka bacdina ay ka shaqeeyaan in la isugu yimaado waan lagu xalinayo khilaafka taagan ayuu madaxweynaha cawada wuxuu soo saaray jadwalkii doorashada macnaheedu waxa waaye qof aan u aabayeelayo iyo cid aan dhageysanayo ma jirto jadwalka doorashada waxaa ku qoran waxaan ka rabnaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay doorashada xilligaas qabtaan saas yeelaan wiilal dhalinyaro hotelkaas ku shirsanaa soo saaray waxaa saaxiibka Muuse Dhuxulo ku raacsanahay yaa waaye madaxweynayaasha goboleedyada la leeyahay doorashada qabta Saciid Cabdullaahi Daniya Axmed Madoobe waa madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo doorashada walaalaha Soomaaliland oo rabo annagoo taagan in Muqdisho lagu dhaco farmaajo marka isku soo duuduubo wuxuu ku tashanayaa waa intaas dib male wuxuu yiri Puntland iyo Jubbaland shaqo kumali waa ka soconaa hadda Soomaali waa 4.5 doorashada iyo ka qayb gelin haddana Puntland iyo Jubbaland hayeen doorashada hanoo daayo سائرقوا مثلا انت انك النقي شريف حسن اكو ترتمينه مدحوين قرقور يا مدحوين لفت قرين يا مدحوين علي قول له waxaa ka rabnaa doorasho dalka laga wada qabto oo loo sameeyo inay qayb ka noqdaan haddii madaxweyne farmaajo diido annaga ku tartamayna shariif xasan han dhaafan taasi taasaan ka leeyahay madaxweynaha wuxuuna leeyahay horta waxaa ogaatiin madaxweyne farmaajo soo u yimid dadkii ugu badnaayaa magaaladan ka dhintay 1000 qofooda isku maalin meel ku dhimatay maalin kalena 200 isku meel ku dhimatay oo ogtiin oo ex control iyo qarax waxay ku dhinteen Soobe waa markii ugu horeysay oo dad siyaasiyiin guryahooda lagu weeraro waa ninkii sameeyay madaxweynayaasha hor fadhiya inuu diyaarad la ridi rabay waa ninka ogtihiin oo muwaadinkii qalbi dhagax dhiibay waa ninka ogtihiin oo yiri doorasho kasta aniga aan qabanayo waa inay dadku dhintaan doorasho oo qabto dadku dhiman ma jiro isagnahay waa ninka yiri cashuurta ugu badan dadka ku kordhiyay muqdisho jooga oo laba cashuura laga qaadaa tii shabaabka iyo tiisi intaas oo dhan maxaa loogu sabrayay mudday lahayd 4 sano waa dhamaatay waa in si kor jooga la iska yeeli maayo suuragalna ma soo warcad maaha saaxiibkay daargeela muxuu yiri dictatorna ma rabno dagaal sokeeyna ma rabno labadaas dhexdooda aan taaganahay anaga madaxweyne farmaajo intaas ka badan dulmi loogu dulqaadan maayo waa inaad dhagihiina furtiin hadduu yiraahday dalka burburaya ma burburaayo sababtana waa inii sheegaan iskoolada jaamacadaha telecommunicationka bangiyada biyaha korontada dowladda ma ka dhibto soo shacabka iskama leh dowladdan tartankeeda ku jirno asagana madaxweynaha ka yahay 4 meelay deganta madaxtooyada garoonka diyaaradaha dekada iyo baarlamaanka deganta 4 tana amisom wardiis horta wax cabsiha qabinina wala burbura horta yaa leeyihiin wax burburaya male asaga si tartiib isaga siibayna hadduu talada dalka diido wixii diina waa haysatay
dagaalka sokeeye markuu dhacaya 90kii aniga waxaa ka soo baxay dugsi sare 2 sano oo militariya la geliyay oo la yiri jaamacad arki maysid ilaa military gasho waa soo galay imtixaankii jaamacadda xamar u imid waa fariistay waa waayay magaalada iska joogay dalka waxa dumiyaa inii sheega wax kasta dawladda lahayd wax kasta dawladda lahayd maanta wax kasta waxaa leh dadka iska leh madaxweyne farmaajo waxaa dhibayso dadka inay waxa leeyihiin dhibayso inuu ka dumiyo rabaa mana ka yeelayno idinka maxay ka rabnaa banaan baxa nabadda inaa u soo baxdiin oo odan cabsanina diyaar ma tihiin annagaa in horkacayn inka dabaymayno maalintaan idhaahno soo baxa waa inaa soo baxdiin oo si nabada aan isku dhaafino madaxweyne farmaajo daraada eed guryaheenna u hareereeyay waa kuwaana musharaxiintii hore fadhiyaan qof tilaab u qaada ma leh daandaansiyu rabaa madaxweyne farmaajo saraakiisha guryahooda u dhacu hayaa habeen saqdhaxu u dhacaa war ninkan dadkii aafi iyo colaadu ka abuuray madaxweyne farmaajo wuxuu rabaa inii sheega oo inteenaa nagula dagaalsan yahay dagaalka geda ani maxaa laygu hiili waayo war dagaalka gedo adiga walaalaha isku haysteen madaxweynihi tee dhexdhexaadii kordheel cabbaas maxamed sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdirasii janan iyo kaliil oo guddoomiyihii hore gobolka gadaa madaxweynaha walaalihiis waaye macallimow iyo wiilkii nabadsuud jooga magaciisa ii sheeg kullane iyo asagana waa dhinac waa hal beeloo is haysata oo annaga maxaan dhexgeliyey dibashiib basaan ku dhexgeli karnaa inteenaan waxaan diyaar u nahay inaan tolkii ishayso aan heshiino laakiin waxaa ka soo hor jeednaa ciidan xamar diyaarad looga qaada oo jidka mari karin oo jidka maxay u mari karin al-shabaabaa ku jiro gadaa dagaal laga ridaa jidkana shabaabaa ku jira war horta aan jidka xorayno oo tolka madaxweynaha hadduu asaga ku fashilmay inuu heshiisiiyo annagaa diyaar u ahe madaxweynaha waa la heshiisiinaynaa tolkiis waxay ishaayaan waa tolkiis isma haayaan cid kale dad kalena isma haayaan dadkaana in la siro waa soo dhaafeen waa lays yaqaanaa soomaali waa isgaranaysaa qof been u sheegi karaa ma jiro waxaan rabnaa marka waxa laabaya ma lehe u diyaargarooba inaan si nabada isaga dulqaadno hadduu ina farmaajo diido doorasho dhexda taalla in la qabto u diyaargarooba annagaana diyaar u ah waana inku hormooda inkugu nahay waana inku horkacaynaa si nabadaana keligii isku dhaafinaynaa sida wiilka dhallinyarada sheegay asagoo socdow yimid asagoo socdaa iska diraynaa inteena kalena si nabadaan ku joogaynaa waxaad ka cabsatiin yay jirin waa mahadsantiin wasalaamu calaykum shirkadda Worldremit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horreeya adeegga Worldremit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE inay laba mid doortaan qofka jooga inay doortaan iyo qof cusub inay doortaan madaxweynuhu fursad u sii dadka Soomaaliyeed ciday rabaan inay doortaan hadday ku doortaan qasaman wa cadaman oo ay kugu doortaan si xurriyada oo sharafa oo shafaafiyada waa ku taageeraynaa laakiin kada doorashada sida ku wada madaxweynuhu asagoo og in talooyin socdaan oo shala ay afsi naga soo qaateen ururada bulshada maanta jadwal in la soo saaro macnaheedu maxaa waay waxba igama gelin qaran kuma dhismo waxba igama gelin qaran wuxuu ku dhismaa wada fadhiisi isfaham sharci wada socodka ku dhismaa qarankan dadaa xoolo geliyey dadaa waqti geliyey dadaa dhiig geliyey nasiib wanaag 49 maalmood oo joogtaa madaxweyne la qabtay alxamdulillaah
alxamdulilah marka rabitaanka dadka soomaaliyeed iyo horumarkooda loogama tanaasuli karo qof rabitaankiisa khaldan loogama tanaasuli karo waxaan rabaa marka inaan aado maxaa dhici karo suuragala haddii dowladdu ay wax garato oo waxaan dhulka ay soo dhigto oo ilaahay hanuuniyo oy tiraahdo waxaan laga wada hadlo jidaa la helay haddii jidkaas uu xirmo maxaa furan guryaheena iska joognaa dowladdu waxay rabtaa ha samayso 4 sano kale ha joogto 4 kale ha ku darsato meeshay ku dhammaanayso aan wada sugno saas miyaan yeelnaa yay u fiicantaa taas ciday u fiicantaa lama arko ciday u fiicantaa lama arko ayib kan kale maxuu noqonaa marka taas waa isla garan maxaa kaloo furan waxaa kaloo furan mudaaharaad sida saaxiibada ay sheegeen in dadku banaanka ay soo baxaan ay dhahaan waxaan waa diidnay wuxuu noqonayaa mudaaharaadku wax laga maarmi waayey oo dantu khasabtay oo wax kaloo la samayn kara aysan jirin ayuu noqonayaa ma jeclin annaga waa iswarsannaa inteena meesha fadhida ma jeclin khiyaarkaayna maaha maxaa yeelay waxa ka dhalan karaa naqaanaa laakiin haddii la waayo dowladnimadii inay si saxa u socoto maxaa la samaynaa sidii gabadhii walaashay ay sheegtay waa iska aamusaynaa waa iska sabraynaa say u socdaan wixiina muddo kadib haddana derbiga ku tagaayaan gadaalan ka soo bilaabayna maya hadda inaan qabanaa fiican hadda in la qabtaa fiican dowlad waxaa lagu dhisaa xigmad iyo wadajir xoog iyo boob dowlad laguma dhiso shucuubta adduunka joogtana waa kala duwantan soomaalidu dhinacaas kuma fiicna annaga waxaan rabnaa in nagu filan oo dhiba waana soo martay dhulka aan dhiganno aan ka wada hadalno sida aan isu dooranayno waktiga la ys dooranaayo meelaha la ysku dooranaayo sida wax u dhacayaan ayadoo cad aan is dooranno doorashadan maxaa la rabay waxaa la rabay qof iyo cod inay noqoto qof iyo cod haddii la waayey haddana qolo gaar ahaa maamulaysa oo xafiisyada dowladda ka timiday sax ma ah marka waxaa la rabaa mas-uuliyadda loo dhiibay madaxda dowladda sida ay tahay inay u gutaan dadkan hadda waxay ku sabreen 4 sano wixii dhacaya mid gobol jooga ma nabadgelin mid magaaladan joogana ma nabadgelin ninka gado jooga ciidan loogu geeyey iyo ninka jooga mataqaanaa maxaan ku idhaahdaa puntland wax lagu abaabulay iyo ninkii inta dad lacag la siiyey sharaftiisa la dhaawacay kulligooda waa dhiban yihiin waxa loo safraya waxay ahaaday maalinta doorashada xal la gaari doonaaye ha la sugo maalintii doorashada haddana haddii la yidhaha anay garabka ii saaran tahay arrin la aqbali kara maaha waxaan rabaa mihaalla inaan soo qaato adduunka dadka ugu dhaqaalaha badnaa jiray ama ugu horumarsanaa jiray waxaa ka mid ahay ciraaq xilligii saddam xuseen ciraaq adagay ku dambaysa waxay ku dambaysay meesha aan wada ognahay ciraaq ma waxay u duntay lacag la-aan ciraaq ma waxay u duntay cilmi la-aan ciraaq ma waxay u duntay thaqaafa la-aan intaba uma dumin waxay u duntay dictaatoriyad marka labaa mid dooranaysa labaa mid doorana maanta oo ay dhowdahay inaa qabato iyo beri markay xoogaysato xididaysato dadka iibsato inaad la diriirto labadaasaa kuu furan mid doora marka adiga waxaan rabaa ummadaha marka la dhibo oo la dhibaateeyo oo la gaajaysiiyo oo la dulaysto naf waxay bidaan dictaatoriyada isku dhirirayaan xaqana waa ka cararaan waa la sii dullaystaa taariikhdaana noo sheegaysa qofku wuxuu sharaf leeyahay intuu xor yahay oo fikirkiisa cabiri karo qofka jiritaankiisa wuxuu macno samaynayaa inuu xor yahay
dowladdana waxaa laga raba kow damaanaqaadka xuquuqda dadka xuquuqda iyo xorriyaadkii ayaa la qaaday mar hore waa ku aamusnay maanta doorashadaa noogala darsada waa ka daba qaylinaynaa war bal doorashada aan dabada qabanno iyo dabada qabamayna isku haynaa hadda maxaa yeelay shalay cabdiraxmaan cabdishakuur marka la weerarayo isaga dowladda waxuu dhibaa waxuu ka rabiyaa ani madaxweyne xasan iyo khalkan diyaarada nagala celish iyaga madaxweyneha waxay u khilaafayaan hadda waxay joogtaa doorashadii haddana waxaa lena doorashada madaxweynaha loo dhaafo saas maa dhahnaa dictaatoriyada marka waxaan rabaa wax yarna uga sii laabto waxaa la dhahaa annaasu calaa diini muluki hadduu madaxweynaha uu noqdo nin dictatora gobolladana wax kale ka sugi mayno hadduu madaxweynaha sharciga ilaaliyo oo sharciga nagu hago oo sharciga ku adkaado gobolladana kaasaa gaaraya marka dimuquraadiyadda curdanka ee wakhtiga la soo wada geliyey ee rajada laga wada qabo nagama gasho ha loo daayo ha la yska dhaafo ma gasho arrintaas waxaan rabaa arrimaha dibadda inaan wax ka sheego soomaaliya waxaa ogtihiin waa dal jilcan oo hadda soo koraaya oo u baahan saaxiibo badan inuu samaysto calaaqaadkii arrimaha dibadda 4 sano oo lasoo dhaafay maxaa ku dhacay dowlado badan oo istaraatiiji noo ahaa oo weligaan aan calaaqaad la lahayn oo weligaan dhibaataan dhex martay waxaa la kari karay kuwa hadda saaxiibada ah oo dowladda la jooga iyo kuwaasba in laysku haayo oo dalka looga faa'iideeyo aa la kari karay maxaa yeele kulligoodba xaqay kugu leeyihin adigana xaqaa ku leedahay ma dhicintaas dowladaha deriska ah deris waxa waaye mahmaayo aan ficnayna sheega raalli ahaada waxaa la yidhaha nin iyo naag colna maaha heshiisna maaha dadku hadday deris yihiin colna maaha heshiisna maaha waa la isqabanaa laakiin dowladda maxaa laga rabaa haddii wax dhacaan inay xalliyaan waxay si fiican u xalliyaan ayadana ma jirto yaa ku dhibaatoonaya waxaa ku dhibaatoonaya dadka soomaaliyeed dadka xoolahoodu yaalliin kenya ama meel kale yaalliin ama raba inay maraan oo safar ugu baahan arrimahan dhacaya waxay ku yihiin dhibaato dowladduna waxay u xil saarantahay inay ilaaliso masaalixda dadka inay ilaaliso ma dhahayno khilaaf ma imaan karo laakiin khilaaf hadduu yimaado wadiiqo saxa in lagu xalliyo ayaa loo baahan yahay waxaan rabaa inaan usoo gudbo ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida waa kuwa noogu sharafta badanne waa kuwa loo diyaaray in annagana hurudno ayagana bannaanka ay taagnaadaan amnigeenna ay sugaan cadowga naga ilaaliyaan u dhintaan